Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay shacabka Hiiraan inaan dib loogu laaban aanooyin qabiil iyo isdil. Dhanka kale, Sheekh Bashiir ayaa ka hadlay arrinta Ikraan Tahliil isagoona dowladda ugu baaqay in ay war sugan ka soo saarto arrintaasi. runtaan culimo ahaan hadii dil badan baa ka dhaca dalka kiisas badan baa dhaca kiiska gabadhaasna runtaan si gaar ah uma aan mutaabacaynin laakiin guud ahaan qawaacida islaamka waxaan ka baranaynaa ama inoo sheegaysaa dowladda inay mas'uul ka tahay dadka maaragtay ay maamulayso dhiigooda iyo ammaankooda iyo maalkoodaba in la ilaaliyo weeyaan. dowladdu dalka bay ilaalinaysaa in dadka la ku soo duulaan bay ka waardiyeynaysaa maaragtay xataa shacabka laftiisa in la kala xishaada raba la kala waardiyeeyo. dowladda lafteedu awoodeeda waa in si maaragtay si sax u isticmaashaa la rabaayo aysan dadka aysan ku dulmin baa la rabaa. wixii dhacana si ay u dhaceen iyo xogteeda iyo macluumaadkeeda iyo dhammaan waxa la xiriira dowladda u taala oo booliiska iyo dadka qaabilsan kiiska maaragtay bay u taala cid kasta dib soo gaaran runtii dhibka asaga ah in ay dowladda kala xajoodaan oo dowladdu ayadu iska xilqaantaada rabaaye in dadka ayagu ay macluumaad raadiyaan ama ayagii ay maaragtay mas'uul ka noqdaan kiiskii maahane kiiska dowladda ayaa mas'uul ka ah rabaa. kiis kastaba oo dhaca dad baa amisom laysay dad baa dad kale laayeen intaa waxbaa la dilayaa. marka runtii dowladdu inay maaragtay ay dadaal muujiso ay maaragtay firfircooni muujiso oo wax kasta oo dhaca ay jawaab saxa ka bixisaa la rabaa. hadda gabadha ayada ahna oo hadda ay weydiisay runtii maxaan ku rahaa maaragtay waa gabar shaqaale ahayd baa la yidhi in maaragtay yani waa la dilay baa la yidhi waxaasoo dhan macluumaadkeeda anagu hadda ma aan mutaabicin laakiin guud ahaan qof kasta in warkiisa iyo xaqiiqadiisa ama noloshiisa la helo ama dhiiggiisa ciddii gashay la helo ayaa runtii loo baahan yahay oo dadkii meel ay kusoo hubsadaan baa la rabaa. marka runtii maxaan ku rahaa dadkii maaragtay dhib ku gaarana nooc kasta ay yihiinna inay waddo sax u maraan baa la rabaa. dhiig ay raadinayaan iyo waxaa ka maqan runtii dowladdu xafiisay leedahay maamulay leedahay dad waxay leedahay loo xil saaray inay maaragtay dhibka dhaca ay kalsa gaaraan. marka qofka shacabkan wixii ka maqnaa waa inuu raadsadaa oo maaragtay uu u maraa waddada lagu talagalay. dowladduna waa inay ka siisaa maxaan ku rahaa jawaab fiican baa la rabaa ay ka siiso oo dadka aan lagu abuurin walbahaar aan lagu abuurin ama dadka aan tuhun lagu abuurin baa la rabaaye jawaab sax ah oo cad baa dowladda looga baahan yahay. kiis kasta oo dhaca haddii midkan gabadha keliya maahane runtii de anaga dowladdeennuna maaragtay waa dowlad iska curduna waa la socotaa oo sistamkeeda iyo nidaamkeedu aad uma xoog badna. marka si kastaba waxaa weeye in lilaahi laga ahaado wax kasta oo dhaca la rabaa oo dowladdu ay ka jawaabto wax kasta oo dhaca gaar ahaan dee kiis gabdheed culeyskiisuu leeyahay oo gabdhuhu diin ahaan dhaqan ahaan xurmo gaara ayay leeyihiin culeys gaara ayay leeyihiin runtii. marka in maaragtay daryeel fiican iyo dadaal fiican laga geysto sidii kiiskaa loo xalin lahaa ama xogtiisa runta ah loo gaari lahaa ama dadkii gabadha loo qancin lahaa aad baan usoo dhaweynaynaa runtii in maaragtay dadaal fiican la muujiyo. sidoo kale waxaan sax ahayn in maaragtay dadka wax ka maqan yihiin ay waddo aan sax ahayn ay qaadaan. shay saxa maaha oo ay ka mid tahay qofku inuu maaragtay dad aan asaga wax ka dilin qofku inuu dilo oo maaragtay maxaan ku rahaa tuhunka la dabagalo. warkaas iyo ficilkaa runtii ficil dowladnimo maaha ficil diini ahna maaha. maaragtay qofkii qof dila isagii haddii la helo dowladda ayaa mas-uul ka ah inay soo gacan geliso oo mas-uul ka tahay. laakiin asagii wixii loo malaynayo ama qaraabadiisa ah ayaan ka argoosanayaa ama aan dhib gaarsiinayaa diintuna shay ogoshahay maaha waana dulmi weeye. marka haddii dulmi laga cabanayo in dulmi looga jawaabo shay saxa maaha. dulmiga dhacay cadaalad baa jawaabtiisu ahaanaysa insha allahu tacaala. haddii cadaaladda la waayo in dulmi kale lagu jawaabo oo dad aan wax geysanin loo dilo ama dad aan wax geysanin maxaanku loo afduubto sida la sheegahayo ma hube ama dad aan wax geysanin maaragtay la cabsi geliyo waa on waxa weeye runtii maaragtay dhibkoo sii badanaya weeye dulmigiioo sii ballaaranaya weeye. marka waxaan dardaarmaynaa anagu dhib kasta oo dhaca
ciddii ku dhacaana inay si saxa u marto raadintiisa iyo xalintiisa, dowladduna ayaduna ay si fiican uga jawaabto oo wax kasta broseskiisa la marsiiyo oo dadka kiiska iskale la qanciyo oo waxa meel lagu soo ogaada la rabaa insha allahu tacaala. marka in la isku dulqaatana waa la rabaayo maxaan ku dhahaa ii sheeg si fiican mushkiladda loo xaliyo. marka wax kasta oo muujinaya in qofku sharciga uu gacantiisa ku raadsanayo shay saxa maaha, meel kasta ay ka yimaadaan. dowladduna awooddeeda si sharci ah ha u isticmaasho, wixii dhibacoo dhaca ha ka jawaabto, shacabkuna wixii ka maqan si sharci ah ha u raadsadaan, si sharci ah ha ula falgalaan. intaasaan ka odhan lahaa ayadana insha allahu tacaala. baaraka allahu fiikum.